haddii ay Somaliland aqbasho markaa in ay Soomaaliya maxaabistaas u kala wareejiso Somaliland qarannimadeedii khiyaamo qaran lagu sameeyay xukuumadda talada haysa in markaasi lagu dayacqaabo ay tahay waxaan arkaynaa 4 bilood imika nabad xukuumaddan ka shaqeynaysa ciidamadii Somaliland ay leedahay waan qaramayno wadadaas u maraysa dhammaantood waxay u muuqdaan kuwa loogu sahlayay in maanta Soomaaliya ay ka taliso laascanood oo u aqoonsato maamul marka Somaliland qayb ka mid ah Soomaaliya u aqoonsato waxay noqonaysaa markaasi in khiyaamo qaran Somaliland laga galay in maanta lagu soo casuumo maanta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku yimaada runtii waa dhagar ka xun dhagartii 25 August inay kaga dhacday magaalada laascanood baran laas qoray ciidamada Somaliland jooga Somaliland mushaarka siisa sol waxa jooga ciidamada Somaliland wad arkaysay haddii Somaliland daacad ka tahay safarkaasi inay ka soo horjeedo ama waxaan ay wadaa uu sax yahay daawadayaal soo dhawaada hadda waxa dhinacayga fadhiya Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ah siyaasi madax banaan inta badanna falanqeeya siyaasadda geeska iyo taa Somaliland ba oo soo dhaweynaya Maxamuud Jaamac Xuuto bal arrimo badan ayaa dalka ka taagnaa haday noqoto arrimaha isa soo taraya socdaalkii uu ku yimi laascaanood ra'iisul wasaarihii dawladda federaalka Soomaaliya iyo maanta uu halka ka baxay bal adigu socdaalka iyo sida uu kula muuqdo seewi yaasirow aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad yaasirow mahadsantahay walaal saan la socono toddobaadkan imika u dambeeyay ama 4-5 cisho u dambeeyay magaalada laascaanood gobolka Sool ee Somaliland waxa yimi wafdi ka socda Soomaaliya oo ah taariikhda Somaliland intii ay jirtay markii koowaad ay wafdi caynkaasi yimaadaan runtii wafdigaasi anigu shakhsiyan waxaan u arkaa in ahaa wafdi fursad la siiyay wafdi lagu soo dhaweeyay lagu casuumay in iyagu Sool yimaadaan marka loo eego Somaliland maanta saameynta ay arintaas ku yeelatay waayo wafdigaasi haddii aanay haysan fursadaasi ama aanay Somaliland ogolayn waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo looga hortagi kari lahaa ayaa jiray taasaa ku muujinaysa in ilaa hadda sida looga hadlayo iyo si wafdigaasi uga shaqeysteen meeshaas ay tahay fursad lagu casuumay oo maanta arintaasi sumcad xumo weyn ay Somaliland ku keentay marka loo eego mustawaha Somaliland halka ay maraysay maanta challenge inaga dhaxeeyay inaga Soomaaliya inuu ognahay Soomaaliya ilaa iyo maanta MAU Ethiopia aynu la galay cadaawad ugu dambeysay ayaaba inoola bareeday dunida saacad kama fadhiisan waxay isku dayeen ama ay hortageen meel kasta oo ay arkayaan danta Soomaaliya inay ku jirto gaar ahaan dawladihii waaweynaa Mareykanka oo kale oo runtii madaxweynuhu maanta u dambeysay ka hadlay uu sheegay in sanadkan gudihiisa inay ictiraafto ay ku dhowdahay sidoo kalena dalalkii kale ee dunida oo dhan Somaliland saameynta ku lahayd oo dhan sida dalalka Jaarka oo kale IGAD iyo EU iyo dhammaantood dagaal weyn bay isku bahaysteen Soomaaliya oo Somaliland kaga soo horjeedaan iyagoo u bareeray markii hore inay nagu haystay inaynaan heshiisyo ku gali karin khayraadka dalkeena yaala in iyagu maanta meel walba la taagan yihiin annaga bixinayna sida hadalladooda u dambeeyay ay ku hadlayeen oo kale ama qoraalada ay u gudbiyeen oo kale dawladaha waaweyn marka arintaas waa nasiib xumo la kowsatay xukuumadda 4 bilood talada haysa runtii saameynteedana waynu arkaynaa ilaa iyo halka ay marayaan in maanta khaatumo leeyahay waxaan u aqoonsanaynaa maamul qoraalka u dambeeyay soo saareen iyo in faragelin ah maxaabiistii Somaliland iyo deegaankaasi ay kala haysteen maadaama uu xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro waqtigii dagaalka ay ku soo qaadeen ismada iyo dadka deegaankaasi ay u arkayeen Somaliland gudaheeda dagaal ka socda sababta ay u soo fargelisay Soomaaliya maanta maxaabiistii Somaliland ay kala haysatay maanta ay u yiraahdaan waa la isku wareejinaya runtii waa arrin nasiib darra anigu waxaan maanta aad ugu faraxsanahay runtii 4 bilood u dambeeyay in aan dhacdooyinkaas oo dhan iyo processkii ay qaateen ama loo soo waday oo dhan aan ka waramayay maanta aniga dhibaato ugu mayso waayo intii aan ka deerinay ama intii aan ka hadlayay aan daba taagnaa ba maanta runtii si ficiliyana uga qabsantay gobolkaasi Sool oo Somaliland runtii maanta ay ku tahay waran dhabarka ka yaal way Xuutoy adigu sidee buu kula muuqdaa in tira cayiman oo 25 maxbuusa ay Soomaaliya iyo khaatumo isla gartaan in la soo daayo Somaliland lagu soo wareejiyo maxay Somaliland uga dhigan tahay haday aqbashataa runtii ilaa hadda arintaasi
intaanu xamsaba iman ka hor waa waxaan ka hadlayeen kuu sheegayeen ka hadlay doodaasi intaasoo dhanba way soo socoto way taagneyd ka hor baaba xataa mararka qaarkood isku dayay Somaliland iyo Soomaaliya inay maxaabistaas isweydaarsadaan laakiin ilaahay marka uu ka shifayo waa ta keentay maanta in xamsi oo jooga ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya saacad jooga isaga iyo dawladdiisu ay leedaan maxaabiista anaga la nagu wareejinaya maadaama aan sidaa aan soo sheegay xidhiidh hoose ama xidhiidh iminka soo shacbaxaya uu jiray marka horeba waxaanu ka warsigi doonaa dhanka Somaliland talaabada ay ka qaado golhu waa kiimaanta dhaweeyay qaraar ka soo saaray ilaa hadda xukuumadda Somalilandna qoraaladan iyo hadaladan u dambeeyay runtii kamay hadal laakiin waxaanu arkaynaa aamusnaanta jirta xagga xukuumadda Somaliland ilaa maanta ilaa shalay hadalada soo baxay qoraalada soo baxaya ku gadaamin in ay tahay in ay ogoshahay oo hawshaas ay raali ka tahay waynu sugi doonaa ka hor dhicmayno laakiin waxaan dareensanahay waqtigii xukuumaddii madaxweyne Muuse Bixi ee maxaabistaasi lahaayay marnaba reer Somaliland dabac kama muujin sida dunida ka dhacdo oo kale maxaabistaasi inay u dabacdo oo wax qarannimada saameyn ku keenaya ay Somaliland dhaafsato laakiin maanta haddii ay noqoto sida uu ku doodayo Xamse ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya maamulka laascaanood ka jiray iminka talada gacanta ku hayana uu ku taageeray shalay sida qoraalada la soo saaray baarlamaanka ay sameysteen uu u tagay Xamse ay isla qaateen in maxaabistaasi ay sii deynayaan haddii ay Somaliland aqbasho markaa in ay Soomaaliya maxaabistaasi u kala wareejiso runtii haddana waxay noqon doontaa waran runtii Somaliland waramo badan oo hore oo ku soo dhacay oo fursado fara badan ay ku lumisay maanta haddana sii siyaadinaya in daruurta ama bidhaanta aynu arkayna aqoonsigii in ay xukuumadda maanta talada haysaa markaasi u bareeray inay kaga hortagto maadaama aynu arkayna safarkani iyo dhaqaaqa ay Soomaaliya wado geed dheer iyo geed gaabanba wax walba u soo sameysay maanta fursadaas inay noqon doonto haddii ay suurto gasho oo ay maxaabistaasi Somaliland la wareegto iyadoo aan la garanayn qaabka uu la wareegto sifaa uu la wareegi karto iyadoo safarkaasi cambaaraysaba in ay maanta maxaabistaasi aqbasho horta waa wax aynu sugayno oo ka hor dhicmayno laakiin duruufaha jira iyo dhaqaaqa jira markaanu akhrino waxay u muuqataa Somaliland maanta talada haysa xukuumadda maanta talada haysa in ay dabacsanaan fara badan u muujinayso inay Soomaaliya marka runtii waxaan arkaa arrin kale oo ayaan daraa haddii ay suurto gashana runtii sidaan soo sheegay Somaliland ku noqon doonta maanta dhibaatada ugu weyneed aqoonsigeedii iyo ictiraafkeedii iyo dawladnimadeediiba runtii hor istaagi doonta waayahay xuutoy bal ugu dambeyntii haddii Somaliland ay aqbasho maxaabiistaasi maxaad mid iyo laba nooga sheegi kartaa arrimaha ka dhalan kara inkastoo dadina ay soo dhaweynayaan dadna ay ka biyadiidayaan maadaama maxaabiistan la leeyahay waa la soo wareejinayaana ay tiro kooban tahay oo aanay wax badanna ahayn waxa walaal ka dhalan karaya wuxuu horta waa faragelinta Soomaaliya ama Xamse dhawaaqa uu ku dhawaaqay ee ay reerka ama maamulka halka ka sameysmay magaca reerka huwaneed ay Soomaaliyana doonayso inay ictiraafto wax weyn horta waa caqabada koowaad weyn in ay Somaliland ka tanaasusho gobolladeeda qaar kamida oo halka ka ahayd iyadu wada hadal kasta iyo geed kasta inuu fuusho sidii u soo ceshan lahayd waayo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro dawladda hore wuxuu ku eedeynayay inay gacan kulul ku qabatay gobolkaasi oo dad badan ku xasuuqday kulaysay marka maadaama isagu maanta xilka hayo waxay inuu doodaasi soo afjaro oo isagu gacanta ku qabto oo keeno waxaan arkaynaa 4 bilood buu imika nabad xukuumaddan ka shaqeynaysa ciidamadii Somaliland ay leedahay waan qarameyno wadadaas u maraysa dhammaantood waxa u muuqdaan kuwa loogu sahlayay in maanta Soomaaliya ay ka taliso laascaanood oo aqoonsato maamul marka Somaliland qayb ka mid ah Soomaaliya oo aqoonsato waxay noqonaysaa markaasi in khiyaamo qaran Somaliland laga galay waa tukuwad weyn talabaadna waxa runtii maanta ayaan daraa oo aan la aqbali karinin sabab aliyaala sabab Somaliland ay kula wareegi karto maxaabiis Soomaaliya ay ka soo deynayso laascaanood ba iyadana lafteedu haddana qaran jab kale ah oo aan iyana runtiisa ay ku suurto galayso aynaan garanaynin marka kor iyo hoos u soo qaado waxa weeyaan Somaliland maanta dagaalka ay Soomaaliya ku soo qaaday ujeedadiisuna ay tahay in ictiraafkii Somaliland oo soo dhawaaday laga hortagaa waa arrin Somaliland maanta soo laalaabaysa ama wax weyn u dhimaysa qadiyadeedii weeyaan marka waxaad ku talinaysaa inaanan maxaabiista lala wareegin waxaan ku talinayaa oo runtii maanta
inoo muuqata haddii lala wareego sida aan soo sheegay oo Soomaaliya aynu kala wareegno ama Soomaaliya inoo kala wareejiso in Somaliland qarannimadeedii khiyaamo qaran lagu sameeyay xukuumadda talada haysa in markaasi lagu dayacqaabo ay tahay haddii kale waxaan ku talin lahaa maanta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi afartii biloodu joogay wuxuu culayska saari ummadda reer Somaliland kula hadlayay uu kaga duwanaa uu sheegay inuu kaga duwan yahay xukuumaddii hore inuu isagu Somaliland soo xorey gelinayo isku keenayo isku haynayo xukuumadda magacyo badan bay kula baxday wax qabad bay kula baxday wax qabadkii ilaa hadda ma arkayno hal irbad ay duul gelisay wada jir bay lahayd wada jirkii ilaa hadda kama arkayno marka in wada jirkii maanta Soomaaliya ay u aqoonsato khaatumo maamul jira oo Somaliland ka go'ay runtii waxaan dareemaynaa markaasi in haba yaraatee xukuumadda maanta talada haysa wixii u banaana iyadu ay ku casuuntay markaasi Soomaaliya inay gacanteeda iyo sumcad ku samaysato maanta qarannimadeena iyo ictiraafkii aanu doonaynay kaga hortagtaba marka waxa weeyaan in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi sidoo ummadda u sheegay u ballan qaaday kana warsugayno marka imka golayaasha hor yimaado haddii Ilaahay yiraahdo in uu isagu inoo ballan qaado ama inoo sheego qaabkii uu maxaabiistaas ku soo deyn lahaa ama qaabkii Soomaaliland isugu soo celin lahaa waa maanta dhaabada Cabdiraxmaan hortaala ee uu codka ku helay maadaama uu ku eedeynay xukuumaddii madaxweyne Muuse inay iyadu u sahashay Soomaaliland maamulka imika meesha ka sameysmay ama reerka ama garaadadii iyo jabhadiyaha ka sameysmay in ay soo galaan oo gobolka la wareegaan haddii lagu eedeynay waliba xukuumadda imika taladaas ay ku eedeynaysa dawladii hore maanta inay iyaduna ka fudud sidii oo inuu ogeyn maanta dawladda hore dagaalka ka washay khasaarihii labada dhinac ka gaadhay in maanta lagu soo casuumo maanta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku yimaada waruntii waa dhagar ka xun dhagartii 25 August inay kaga dhacday magaalada Laascaanood xuutay waxaad ku soo celcelinaysay xukuumaddani waxba ma ay qaban adiga maxaa ka qariyay qarmaynta ciidamadii madaniga ahaa maxaa ka qariyay diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidanka qaranka Soomaaliland intaas Soomaali wax qabad weyn ahayn oo xukuumaddii hore Muuse Biixi uu hogaaminay ay ku guuldareystay walaal marar badan baan ka hadlay Yaasirow arinta diiwaangelinta ciidamada sanad kasta waa la sameeyaa suurtagal ma aha ama ima muuqata aniga maanta qorshahaas horena waan uga hadlay qorshaha bayskiisa ama aasaaskiisu waa mashruucaas oo ilaa Soomaaliya tahan horena waan uga hadlay qoraalena waan ugu sameeyay dad Soomaaliya maanta xilal ka haya baa mashruucan baysiya aasaas u ahaa oo Hargeysa joogo xukuumaddu ka jawaab weeday waxaad leedahay mashruucan tirakoobka ciidanka qaranka dad Soomaaliya ka socda ayaa wada sidaan marar hore sheegay dad maanta ka shaqeeya Soomaaliya iyo gruuba isku xidhan runtii oo qaarkood markii aan wax ka qoray ay soo bandhigeen sida maxaan ku dhahday ninka software-ka qaatay oo kale waa dadka ugu dhow Soomaaliya ku xidhan weeyaan ninka Maxamed Siyaad Barre leeyahay gabadha Saamiye leeyahay ambassador deganeed maalmihii diiwaangelinta laga hadlayay Hargeysa timid qayb ay ka ahayd mashruucan Soomaaliya hore u qaadatay qaramaynta ama diiwaangelinta ciidamada mashruucii ku saabsanaa marka sida imika ay u soo baxaysa saamaynta Xamse inuu halkan yimaado in ay ahayd tasiilaad iyo farsamooyin gruuba kamid xukuumadda qayba kamid ah ay u saaleen ayaan aaminsanahay inuu diiwaangelintan ay ku bilaabantay hore diiwaangelintu sameysay jirtay waxaad arki doontaa hore waxaan u aragnay shaqaalaha xukuumadda inay tirwaan diiwaangelinaya oo waxaan ka saaraya caaglayaashii xukuumadda ilaa hadda report kama soo saarin tan imika ciidamadana waxaan aaminsanahay sida aanay shaqaalahaba uga soo saarin oo wax caagle ah aanay u soo muujinin tan lafteed inaan u soo muujin waan inuu wada joogi doona xogaal intaan u ahayn aanu ilaa hadda natiijada ka soo baxaysa diiwaangelintaasi waxay u muuqataa inaanay wax caagle la yiraahdo aanay jirin mashruucanna runtii waxaan sidayahay waa lagu degdegay waana runtii ka soo horjeeda waayo maanta sidaad arkaysay nin ka mid ah xogayaasha wadani xisbiga wadani jaamac Feetalera maandhow qoraal buu soo bandhigay baran laas qoray ciidamada Soomaaliland jooga Soomaaliland mushaarka siisa sol waxa jooga ciidamada Soomaaliland wad arkaysay haddii Soomaaliland daacad ka tahay safarkaasi inay ka soo horjeedo ama waxaan ay wadaa uu sax yahay Puntland diyaaradihii soo qaaday Xamse go'aan bay ka qaadato way ka mamnuuc dalkeeda sidoo kale shaqaalihii ama waxaan jiraa ciidamadii ka jooga gobolka Sool in ogan ku dagaalka ugu badnaa nala galay way ka joojisay Soomaaliland ilaa hadda wasaaradaheedii iyo hay'adaheedii ku shaqada lahaa arinta iyo xukuumadeediiba wax talaabo ma qaadin marka waxaan arkaa diiwaangelinta aad sheegayso qaramaynta aad sheegayso waxa sahlay inay tahay safarka maanta Xamse dad badan aragtidaasi way qabaan